بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه أجمعين وحا أينو حلقة أفراد كدغنا قيبتا لباد ميرياشا كو ميرا قرحتين وأن قرحتا أيا آدي آدو قوين وأنا سوطا أيو هايسوتو يأيو ميريان وبقولك وسغالي سغاشا نوبكتا يوليبا بوينتي نايت وحكو دو برسنتي culayskooda marka loo eego shay kasta oo cuf lena wax soo jiidasho ayuu sameeyaa markasta cufkiisu weynaadana wax soo jiidashadiisa ayaa weynaata inagu markaynu maas leenay hadaynu aad u sii weynaano soo jiidasho ayaynu sameeynaa laakiin yaraantiin ayaa keenaysa soo jiidashadeenu inay noqoto mid aan la dareemin haddaba waxaynu ka soo sheekeynay xalqadii hore inay jiraan 8 meere 4 meero ay isku category yihiin ama isku nooc yihiin oo la yiraahdo meerayaasha dhagaxa ama birta ka samaysan kuwa kalena waxay u badan yihiin barafley oo baraf iyo gas ay ka samaysan yihiin hawo iyo baraf marka laba ka midna waxay ka samaysan yihiin hawo oo gas ah oo waxa loo yaqaanaa gas giant planets baa loo yaqaanaa laba ka midna waxay ka samaysan yihiin waxa loo yaqaano baraf oo baraf aad u fadhiya aan suurta galahay aadna way nooga fog yihiin meeraha ugu dambeeya afartii meero hore aan soo sheegnay Mars weey oo dhulku ku sii xiga oo inoo ka sii fog yahay dhulka marka la dhaafo Mars loo galo Mars la dhaafo waxa loo galaya waxa loo yaqaano asteroid belt oo suun aynu ku tilmaamnay intuu fidsan yahay sheegnay waxa ku sii xiga marka afartii planeta kale oo iyagu isku xiga marka Jupiter Saturn Uranus iyo Neptune afartaas kale yihiin Jupiter marka Saturn baa ku xiga aad bay u waaweyn labadaas ilaahay qadartiisa ilaahay qaab cajiiba oo wax kasta xisaab ku dejisan yihiin wax kasta qaacido hadii ay dhici lahaayeen ay noor suurta gashay ayuu ilaahay ku dejiyay waxyaabaha cajiibka ah oo sameeyay waxa kamid ah ilaahay uu koonkan ku sameeyay marka halka la marayo Jupiter iyo Saturn inay kulmaan oo isku beegmaan oo hal line wada fiyugooda wada maro oo araggeena in ka wada aragno waa waxaan dhicin inta ay wareegayaan yani 420 sano mar bay dhacaa maalin dhaweyd 22 December ayaa arintaasi dhacday marka aad bay marka u ifayaan wadamada qaar kood marka waxay sameeyaan iftiin aad badan marka labada xidig ay isku beegmaan climate-ka dunida uu isbedelaya waa xadis aad u cajiiba oo aan dhicin 1600 ayuu hore u dhacay marka maanta ayuu dib u dhacay bishii December 22 December marka waa maalinkay kala wareegaan jilaalka iyo dayrtu oo 22 December 22 ay jeer kala wareegaan 22 December 22 June saasay 22 afartii san 22 maalin wareegooda 22 March saas weey waxa Jupiter iyo Saturn baa isku xiga marka iyagu maadaama aad u waaweyn way soo jiidanayaan maadaama ay soo jiidanayaan waxa dhici kara daahira aan hore u dhici jirin ba ka dhici karta dabeecaan hore u dhici jirin ba universe ka dhici karta marka ilaahay uu kala duwaysaan gravity wax saameeyna u yeelan qaabkiisu ugu xidhay arabtii hore ku dhowdo way yaqaaneen xigmadana inaan isku beegmin Saturn iyo Jupiter oo Saturn waa curiyaha afka carbeed lagu yaqaano Zuhal lagu yaqaano curiyaha kalena waxa la dhahaa Mushtari marka ibn Rumi ayaa bari hore gabay marka gabayada carbeed oo soo marka ay uga jeedin wax kala ku amaano laakiin cilmi uu haystay aawadi xilliga ayuu ugu soo bandhigay qaabka ay xidigahaasi ay u noolyiin markaas wuxuu yiri anjal ilahu min al-marikh suhratakum ilaahay ayaa ka badbaadiyay mariikhbu zuhra ka badbaadiyay marka iyagana lama arkaad jeer istamara wa mushtariikum faqad anjaakum min suhal mushtari oo Jupiter ahna suhal baysna laga badbaadi yani inay kulmaan afarta xidigood lama kulmi karaan xigmada haday kulmaan waxa dhacaysa inay aad arin khatar ay dhacdo oo dabeecada isbedel ku yimaado ilaahay baa maamula uma oranayno laakiin marka la eego gravity-gooda aad u weyn haday isku dhawaadaan isku beegmaan saameyn ay keeni karaan marka midibada cal ayuu ka jiraa ka kale oo si aanay gravity-gooda isugu darsamin ama saameynta gravity-gooda aanay isbedel aad u weyn ugu iman waana la dhaca la arka marka isbedel xagga climate-ka ku yimaada marka ay isku beegmaan
xalqadaha dambe aynu kaga sheekayn doonaa saameynaha ay keeni karaan ama khuraafaadkii hore la aaminsan jiray xidigaha iyo roobabka ama dabeecaddu si ay isugu xidhan yihiin oo magacyadan iminka aynu sheegano dhani waa magacyo ilaahiyo yani ruumaankii hore ilaahiyo waxaan u yaqaaneen oo xidigaas markuu soo baxo kale tusaale ahaan webiyaasha ayaa soo dhici jiray ama roobka u dii jiray ama beeraha soo go'i jiray marka calaamadaha ayay hayeen ama dabaylaha soo dhici jiray waana waxna waa ka jiraan waxna kama jiraan marka xalqadaha dambe aynu kaga sheekayn doonaa Uranus baa ku xiga Jupiter marka intuu ka fog yahay qorraxda 5 jibaar wax ku dhow yani 5.46 oo ah 5 jibaar intuu dhulka u jiro qorraxda oo 150 milyan u jiray ayuu 5 jibaar u sii jiraa 150 milyan oo kilomitir uu jiro ayuu jiraa dhulka qorraxda marka 5 jibaar kadib uu sii jiraa Jupiter curiya loo yaqaan ka kalena 10 jibaar ayuu jiraa oo waa 10.12 Uranus ayaa ku xiga 20 ayuu jiraa waa nidhi iyagu baraflay labada dambe waa baraflay iyagu baraf kaliya weeyo iyo material kale oo curiyaal kale oo methania ka mid tahay waxa ugu dambeeya Neptune 30 astronomical unit ayuu jiraa oo halkii astronomical ama ayuu u dhigmo 150 milyan oo qiimaha 150 milyan oo kilomitir Neptune waxa ka dambeeya marka hadana suun labaad bay lahayd koonka fasiixda suunkaasi waxyaalo cajiib oo badan buu qabtaa waxa dibadda ka imanaya outside ka imanaya oo qabtaa suunkaas isna wuxuu ka sameeyay sida kii hore oo metaliska iyo rock ugu badnaa uma badna wuxuu badan isagu frozen ice يعني waxa ugu badan waa barf maadooyin la volatile ayaa ugu badan suunkaas isagu aad iyo aad buu balaaray 30 astronomical unit buu ka bilaabmaayo ilaa 50 buu gaadhaa scattered disk wax la yaqaan 50 marka au waxa ku xiga scattered disk wax la dhaho waxa ku sii xiga orticlude wax la dhaho daruurta ugu dambaysa oo ninka orti la hal ugu magac daray daruurtaasi waa daruur aad iyo aad yani waa material adag oo iyagu qudhada dhagxaan ku dhex jirto dust particle oo kale ku dhex jiraan daruuro markaa fadhiyo kale ku dhex jiraan oo barafa waxaanay jiraan masaafo iyagu aad iyo aad uga ballaaran tii hore ee la soo dhaafay ilaa qorraxda marka laga soo bilaabo ilaa meeraha ugu dambeeya laga soo gaadhayo boqolaal jibaar ka badan يعني waxa ay orticlude ko kale ay yiraahdaan 2000 oo au ayay ka bilaabantaa marka aad bay uga fog tahay planetka ugu dambeeya iyo Kuiper belt oo suunka ugu dambeeya ninka Kuiper lagu magac daray ninkii soo saaray waxa ay qiyaas ahaan la qiyaasay inay ku dhamaato daruurtaas ilaa 200,000 oo au astronomical unities يعني marka si aad kilomitir ugu bedesho waxaad ku dhufanaysaa 150 milyan oo kilomitir marka waa masaafo aad iyo aad fog intaasi markay ku xidhanto yani waxaan ka sheekeynaa waa meesha ku nooleeyna wax yar baan ka nahay oo ilma qabata yani dust particles kama mid mihin marka loo eego universe-ka qaabka uu ka yahay inta uu ka yahay dhulku iska daa human-kii waxa ku dhex nool inta ka yihiin masaafada inta leeg markay daruurtu haysato markaas waxa loo gelayaa daruurtaas oo dhinac walba inaga xidhan iyo qorraxdeeni iyo meerayaasheedii waxa iyaguna ka siin wax yar habarla jiidkeena oo isaguna xidiga ciida ka badan ka sii kooban waxyaabaha daruurtaas tartay cajiibka ku ah haddii aanay ku jiri lahayn bay yiraahdeen xidiga kale oo aad u waaweyn oo qorraxdo kale ah ayaa waxay sameyn lahaayeen waxay jiidan lahaayeen planetka qaybo kamid ay jiidan lahayn mararka qaar kood intay soo galaan solar systemka oo socod ku soo dhaxmaraan ayaa waxay ka haysan lahayn dhulka oo kale dadna dhulku wuxuu ka bixi lahaa saaxada ku wareega ee dabeecadii saacadiga u wareego ayuu ka bixi lahaa waana khalkhal lahaa marka hadii la kaxaysto waxa la tagayaa meel aanay kalaamadiyadan aynu doonayna aanay suurtagal ka ahayn ayaa la tagayaa ayuu tagayaa ilaahay nagu ma keenay waxa marka daruurtaas ay tartaabay dhaadeen waxay ka celisaa xidigaha kale in ay gravity-goodu shaqeeyo oo dibadda wax ka soo jiito oo dhulka kale iyo meerayaasha ku wareega qorraxda oo dibadda u soo saaro oo qodobka koobaad ay u tarasay dhaadeen qodobka saddexaad u tarto waxay bown u tahay isku xidha u tahay dabar u tahay oo isku adkaysa nidaam qorraxeedkeena qaabku uu yahay inuu isku xidhnaado oo aanu dibadda wax khaarijiga kaga iman yani saameyn soo jiidasho
oo gravity-ga maadaama cufjiidada waxa uu ku shaqeynayo qaabka uu koonkan isku haystay cufjiida tahay marka laga tago awoodaha Ilaahay oo kooniba ay awoodo Ilaahay yihiin ortoclude marka waxa ka yimaada wax loo yaqaan cometiesku waa waxaan nahno xidigaha soo dhaca oo sida diinta lagu sheegay iyo quraanka ah in shayaadinta lagu gano ortoclude bay ka yimaadaan qaybo waxay ka yimaadaan meelo ka sukaysa marka masaafo dheer bay soo jaraan xidigahaas markay soo galaan solar systemka marka qaar baa soo baxsado soo gala waayadii hore aad bay badnayd bay dhaxdeen ma Soomaalida qudhooda markay dhadaan xidiga quwad baa jiri jiray yani cilmiyada waxaas lagu dhaxlo waa kamid sheekadu marka dadkii hore ka sheekaysan jiray oo ma soo gaadhay xidiga qubadka oran jiray marka iyaguna waxa laga yaabaa inay muddo fog dad ay saqaafad dad hore laga soo dhaxlay yahay sidii la sheego bariyi hore waxay dhadaan aad waxa soo daadan jiray xidigaha qayb kamid oo aad badan baa soo daadan jirtay marka waxa la eega asaarta iyo meelaha ku dhacaan laakiin waa theory wax cadayna ma jiraan oo ah meelaha inay wax ku dhaceen dhulka kamida ayaa loo maleeyay dayax waxyaasha cajiibka ee aad ku muhiimka wax kamida dayaxa inaga nagu sii meera wuxuu qabtaa qayb badan oo kamida nayaasibtaas marka ay dhulka ku soo socdaan buu qabtaa maadaama suu gravity-giisu aad isna weyn yahay marka xidig soo dul maro soo dhacay ama dhagax soo dhacay soo dul maro isaga ayaa soo jiidanaya dadna isagu ku dul dhacaya dadna dhulkii ma soo gaadhayo hadduu dhulka ku soo dhaco saameyn buu keenayaa inuu de bini aadanka iyo noolaha ku nool wax yeelo xayawaanka ku nool dhulka inuu wax yeelo ortoclude-ka marka waxa ka yimaada dhagxaanta soo dhacda ama xidigaha soo dhaca oo cirjidha loo yaqaano had iyo jeer ifa ayaa ka yimaada xidigahaasi xilliyada aad loo arkay ee ugu dambeysay waxa kamid ah 96kii deertii biyaa badnayd yani guugi ka horeeyay ayaa la arkay muddo badan bay ka muuqan jirtay dhinac oo kale xidig si dhinac jiifa u soconaysa oo sida xidigaha kale u soconayn oo dib dheer leh yani dibkeedu aad buu dheeri ilaa 500,000 kilomitir ayay yiraahdeen way tahay ba dibkeedu waa xidigtaas high-tech baa la oran jiray xidigtaas xilligaas soo dhacday marka dib loo maaray 17,000 sanadood bay soo socotay bay yiraahdeen meelaha laga soo daayana waxa kamid ah qaar kood waxa la short cometics baa la dhahaa oo iyagu Kuiper belt-ga ama scattered disk-ga ay ka yimaadaan kuwa iyagu marka cumrigaaga hal mar baad arki kartaa mar labaad ma arki kartid muddooyin in badan bay qaadanayaan inta ay qorraxda ay ku soo wareegayaan ama meel dhinacaad ka aragtay dhinaceedii kale marka dib ugu soo noqonayaan khataraha leeyahay waxa kamid ah dhulka dul maraan haddii marka dhulka ay ku soo dhawaadaan inay saameyn ku keeni karaan ama ay ku dhacaan dhagxaan baa iyaguna jirto soo dhacda oo iyaguna Kuiper belt-ga soka iyo meelo badan oo noocaas ka yimaada dhagxaantaas markay soo dhacaan waa ku had iyo jeer ay nooga diganayaan dhagax baa soo dhacay yani meerayaashu way wareegayaan dhicitaanku inagu waxaan aaminsaneen hoos u dhacaan hoos uma dhacaan xagga gravity-gu ku jiraan buu dhacaa dacalka gravity-gu xigun buu shaygu soconaya marka shay korna uu socon karaa dhinac uu socon karaa dhinac uu dhici karaa inay hoos shaygu u dhaco ma aha dabeecada falsafada aaminsanaya ah in la qabsano inuu shaygu hoos u dhaco kor buu shaygu dhici karaa sida dhulkaba mararka qaar kood dacalka kale ay dad kale uga saaran yihiin yani dhulku waa kubad marka labada dacalba dad baa ka saaran way qadarkoodu aad buu yar yahay xabada quruxa yar ee shayga ay qaar kood leeyihiin qaar koodna qaar aad u waaweyn marka inay marka uu dhagax meel fog yani soo dhaqaaqo ortoclude meel ku dhaw ama scattered disk ka soo dhaqaaqo ay wax ku eegaan markaas ay yiraahdeen wax laga yaabaa inuu dhulka ku soo dhawaanayo marka la xisaabiyo laakiin inuu ku dhacayo ma cadeynayaan waayo space-ku waa wax aad iyo aad u ballaaran nidaam qorraxeedkan wax aad iyo aad u weyn intuu soo jirtay wanaga sheegay marka inuu qiyaas ahaan u baadho uu ku dhawaanayaa inuu ku dhacayo ma sheegayaan markaas ay dignina iska bixiyaan sababta in badan markaan ahayn jiraan dhagax baa dhacaya aanu nagu dhicin qudheeda turjumada waa la khaldaayo qofka sayniska qaabka ku sheegay qofka wariyaa way kala duwan marka la dhagax baa soo dhacaya inagu inuu dhulki ku dhacayo aanu gafayn baynu ka soo qaadayna laakiin saynisku waxa aaminsan yahay inay khataruun ay muhtamil tahay laakiin cidina aanay cadayn inuu ku dhacayo marka intaas oo jeer waa marba dhagax la arkaa dhagxaanta Ilaahay oo maamulay waa kuwa shayaadinta uu ku gano ama xigmad kale oo Ilaahay soo daay inagu wax absiya kama qabno haddii adduunyada Ilaahay dhamaynayo haddii ay dhulka ku dhacayaan iyo haddii meel kale ku dhacayaanba waayo de nolosha inagu dambaysa inuu leenahay laakiin gaaladu nolosha ku dambaysa male waa sababta marka in badan ay isugu taxallujiyaan inta waxaynu ku gabagabaynaynaa
barnaamijkeennii qaabku u samaysan yahay nidaam qoraxeedkeennu oo ah wax aad iyo aad u ballaadhan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.